السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيان موسى أحمد آديات بنكوكو سو دوينيا Somali Motivation Podcast. وقتigaaga noo kaaga mahad celinaya maanta soo dhawow. استاهل عبد الرحمن عيديد آديات بدو mahadsantahay walaal. waxaan jeclaa maanta inaan ka hadalno inta badan dadku waxay ka hadlaan coronavirus-ka iyo sida loo kala qaado iyo maxaa la iskaga ilaalinayaa iyo waxa macnaha xanuunka laftigiisa. laakiin anigu waxaan ognahay qurbaha inuu saameyn labaad kale ku yeeshay qoysaska Soomaalida iyo dhalinyarada deganba. tusaale ahaan oo kale in dad yoo fara badan ay ku dhacdo shaqo la'aan oo shaqadoodii laga fariisiyay in dad yoo fara badan dhaqaalahoodu shaqada aanay tagahayn dartood ay hoos u dhacday in dad yoo kale oo badan oo hooyooyinka carruurta haysta ay u badan yihiin gaar ahaan uu ku dhacay stress amba anxiety macnaa warwariyo walbahaar uu ku keenay in hawsha fara badan iyo routiinkoodii isbedelay iyo dhaqaalahoodii isbedelay iyo hawshiyo ku badatay adiguna hooyatay aniguna hooyaanahay markan saa uga hadalno fikir noocee maskaxdaada ku soo dhacaya imaka waxay noqon kartaa magaaladan aan joogo xilligii la nagu soo rogay in the lockdown la geliya amba la yiraahdo guryihiina fadhiya iskuulada la xiray waxa la xiray 13 bishii March marka waxa xiranahay March April iyo May waxa weeyaan waa 3 bilood oo dhow inaad waa run dadka qurbaha ku jooga waxaan ku soconaa plan aroorta wala kacaya wala kala haya aroortii dibadda u saara shaqooyinkii taga waxa lagu socday socod badan bay dadku ku jireen aroorta activity haysteen iskuuladii way ku maqan yihiin mashquulsan kii xitaa iskuul gaadin dawladka markuu shaqo tagayo wuxuu tagayaa meeshii iskuulka ku horeysay xanaanadii buu tagayaa marka ilmihii ila guriyo maadaama aad u yihiin xarunta xitaa dibadda waxay ka soo helayeen nafis iyo faraaqo badan marka wixii oo dhan la joojiyay xitaa meelihii dibadda lagu ciyaarayay la wada xiray leeyahay meel aad cunto ka iibsataan iyo meel dawo ka qaadataan oo kaliya furan taasi waxay dadkii badidooda ku qasabtay in guriyihii ay ku soo wada oodmaan waalidiintii iyo carruurtii say u dhamaayeen warwar badan way imanayaayo qofka noloshiisii oo dhammayd ayay isbedeshay waxa laga yaabaa dadka waaweyn inay garanayaan oo dhanayaan okay waxan iyo waxaasaa jira laakiin ilmihii 4 sano jiray ama 5 sano jiray ama 6 sano jiray sidee baad ugu sharaxi kartaa carruurteed la soo ciyaari kartid lama soo ciyaari kartid meesha xanaanadeed tegi kartid ma tegi kartid way adkaatay markaa waxaad ku jiraysaa shaqada guriga mararka qaarna dhammaan marka dibadda kasoo shaqaynta guriga timaado shaqada guriga way dhammaan jirtay imaka ma dhammaanayso marka culays weyn bay ayay soo saartay iyadayna carruurtii maxaadeen sideed u maaweelin lahayd iskuulka qabatid aanay u horfadhiyi lahayn TV kaliya laakiin waa inaad aad ka fakartaa sidee baad carruurtan u maaweelin kartaa oo marnaba ma noqon karto hawadii aad u saarisay mar hadday xiran tahay waxay noqonaysaa waxyaabo badan markaa hooyooyinku inay isla hadlaan maxaan sameeyaa Google sheekh inta badan waxaan ugu yeeraa Google because waxyaabo badan baan Google garayaa okay lockdown baa jira carruurtii sidee baan waxbarashadoodii macallimiin ma yihiin laakiinse haddana waxay igu qasabtay inaan intaan baxo aan bugaagtii soo iibiyo carruurtii la fadhiisto YouTube anigu dib u galo anigu dib u barto sidee baan ilmaha wax ugu dhigi karaa dad badan way u fududay laga yaabaa adigoo kale macallimad baa tahay inay ku fududaato laakiin qofka weligii buug iyo qalin ilmo u qabanin taas culays adag ayay kugu keenaysaa istaayli dadkuna way sii kala duwan yihiin dadkii xitaa guryaha joogay hooyadii 4 ciyaal ama 5 ciyaal haysatay way naga sii dhibaato badan tahay gashan wax dhacday in carruurtii xitaa iyagoo guryihii jooga leeyahay iskuuladii ka dhigta iskuuladii caawiya ilmihii hooyada aan luqadii garanayn amba waxbarashadeeda hore dhisnayn sidee weliba hadday doonto hooyo keligeed ah sideeba ilmihii ku caawinaysaa aad iyo aad ayay ugu adag tahay laakiin hooyooyinka Soomaalida waxaa odhan karaa hooyooyin aad u adag imika waxaad ka dhawaajisay arrin karo iyaduna xanuunkani keenayo ah waalid kasta amba aqoon ha lahaada amba yaanu lahaan inuu noqday macallin tusaale ahaan oo kale waxaa dhici karta in xataa ardayda
oo kale looga dhigo online imaka oo la yidhaa ardayga 7 ilaa secondary inuu soo galo kadibna guriga uu cidhiidhi yahay waalidkii iyo caruurtii iyo dadkii oo dhan guriga ku wada xariisayeen oo ilmahaasi asagoo iskuulka dhiganaya haddana uu ka lumo concentrationku oo uu magaranaysaa gurigii qaylinaya ambay jirto taana waxaa kasii daranba waalidka aad sheegtay keligood ah amba aan luuqadii ku adag haddana ku khasbayna ilmihii wax u dhigaan taama la odhan kara waxay ka qayb qaadan kartaa sababaha ku keenaya hooyooyinka soomaalida inuu ku dhaco warwar iyo walbahaar oo caafimaadkooga maskaxeed uu dhaawaco way keenaysaa aad iyo aad weliba ta intaa inaga inoo sii dheeri ummad kale ayaan ula shaqeeyaa oo aan soomaaliba ahayn iyagu waxay u furiin markay amba stress ku dhaco amba anxiety dad professional yirahdaan waxa okay sideen waxana igu soo ila soo gudboonaadee sidee baan ula dhaqmaa wax kasta cusub oo qofka bini'aadanka ku yimaada xal kasta cusub qofka culays bay ku noqonaysaa de inagu waan kasii weyn aad iyo aad bayn uga sii xag jirnay waxay noo dheer inaanu haysaninba cid professional oo imaka haddii dhibaato culays igu soo kordho aan kala hadlo okay sidee baan culayskan u manage karayaa taasaaba noo soomaalida dadkeena u sii dheer aad iyo aad waa kugu raacsanahay runtii waana arrin aad iyo aad u xanuun badan waxa laga yaaba hooyo soomaaliyeed inay hooyo soomaaliyada kale la wadaagto arrimo macnaha xanuun maskaxdeeda dhibaato iyo culays fara badan ku hayay oo dabeetana ay isku bedesho in wixii laga sii hadlo oo cid kale u gudubto taasina ay keenaysaa inay dhibaatadeedii sii badato amba waxa dhici kartaba haddii la ogaado in hooyada Soomaaliyeed ay u tagto therapist amba therapist amba dhakhtar psychologist oo dhakhtarka cilmi nafsiga ah in la yiraahdo way isku booqday way waalatay waxaasa ku dhacay oo iyadii macna waa arrin dadkeena taabu ka dhex ah xanuunkana waxaad moodaa inuu soo saaray oo hoosta ka highlight gareeyay tusaale ahaan marka social media ku jirto waxaad arkaysaa in dad fara badan oo dadkeena kamid dhalinyaro dad waaweyn ba leh khaasatan dadka qurbaha ku nool ee kaligood nool amba aan familkii iyo asxaabtii fara badan la noolayn inay marmarka qaar ay kaga hadlayaan in social media ay kaga hadlayaan waxyaabo private ah oo aan u baahnayn dibadda u soo baxaan oo dadna dadka marka comment gareynaya la yiraahdo wuu waalan yahay way isku booqday ayadoo mataqaan aanu qofna oranahay malaha qofkaas haduu heli lahaa cid uu la hadlo amba macnaha dhibaato ayaa haysata amba qof intuu gaar u la xiriiro oran lahaa macnaha ana hadda rabto ku dhageysanaya macnaha siyaabo aw sidii qofka maskaxda culays ku haysto loo caawin lahaa aanay bulshadeena ka dhex dhicin ma isleedahay xanuunkaasi inaga taabuga inaga dhex ah ayaan waalidahay laakiin culayska maskaxda soo wajaha walbahaarka warwarka isku buuqa uu kamid yahay amba stresska anxiety depressionka qofba heerka uu marayo in ay ka dhex muuqato bulshadeena hadda gaar ahaan waqtigan uu xanuunkan soo baxo qof walba gurigiisa lagu xiray oo ka dareemso san sheegay social media iyo macnaha sawirkaas mayla qabta sidoo kula muuqda maslada xanuunkana contribute gareeyay imaka intan xiliyadan dambe oo dhan weliba inta xanuunkan ka horba waynu arkayna dad badan oo dhibaatooyin badan sheeganaya dhibaatooyin badan oo ah inay cid takhasus u leh inay arkaan ay ahayd amba ha noqdaan dad yani dadka diinta yani qof diin leh amba psychologist maxaadenay inay arkaan qof yani khubura oo arrinkoodii kala hadla halkan dadka marka ummadahan kala la dhaqanto qofka sabab ku leeyahay sida yani jirka dhakhaatiirta u booqano iyaguna mental healthkooda dhakhaatiirta u booqdaan wax kasta oo la soo gudboonaada yes inaga waxa dadkeena inta badan waxa la leeyahay xagga diinta u noqdaa waa run diintii waynu noqonaynaa laakiin haddana waxyaabaha qaar dee culimaduba ay nagu dhiirigelinayso inaynu dhakhaatiirta u aragno ayaa jira hooyada imika keligeeda halkan 5 ciyaal ku haysataa hadday doonto afkii garanaynin isgaadhisi loo kaxeeye garanaynin 3 caruur hadday doonaan u yaryar yihiin cid dukaan u tagtaa aanan jirin waxa laga yaabaa inankii caruurtaa dhalanay intuu labistay uu ka dhaqaaqay
saameyn intee leeg bay ku noqonaysaa ayay ku yeelanaysaa hooyadaasi iyanaba xitaa cid u sheegan yes markay markaa meel soo fadhiisatay dhibkeedii ay ka warantay qaylido sidaad sheegtay dadka xoranayaan atar way waalatay caadiyan waxyaabahaasi waa taabuu laakiin dhulkan kale waxaad arkaysaa qofkii xitaa isagoo maskaxdii ka xanuunsanaya yaanu depression amba anxiety psychosis xitaa qaba xanuunadii waa laaya dadka waalwaalaa haddana qofkii dignitygiisi la ilaalinayo oo yani respect badan la siinayo wali okay qof yani sidee baynu qofkan u caawinaa haddii dawo tahay hadday maxaadenay inuu qof maxaadenay psychologist arko amba psychotherapist like nooc kasta oo yani qofkii waa la ilaalinaya sida qof xanuunkii jirka loo ilaalinayo xanuunkii maskaxda loo ilaalinayo haddase si dhaqankeena inaga waa taabua dad ka hadashid waxyaabahaasi covid-19 kuna dibadda usoo saar dhibkii umada haystay arinta marka macnaha covid-19 ku saameynta ku yeeshay maskaxda qofka marka laga hadlayo isu dadkeena uu saameeyey macna maanta oo dhan israada ka hadal adii anigu waxaan dareeminaa culayska ay leedahay gaar ahaan qurbaha tusaale ahaan adigoo ayaan oo hooyo ah oo hooyo shaqaysa waliba ah hooyada maanta shaqadeedii ka dhamaatay amba shaqadeedii xanuunkani galaaftay amba dhaqaalaheedu hoos u dhacay maxaad kula talin lahayd maxaad odhan lahayd horta waddankana joogno waxyaabaha aadka yani advantagekan haysanaanba yani marka la eego waxa weeyaan haddii qof kasta uu shaqaynayo shaqadiisii waayo xaalad la xidhiidha xanuunkani aawadii dowladdu caawimaad bay siinaysaa dhaqaale kab bay siinaysaa ma noqon waxa laga yaabaa inaanay noqonin 6% wixii dhaqaale soo geliyay wada qofkii laakiin at least warwarkii faraha badnaaye qofkii in incomekiisi markii zero noqdo ahaa ayaa meeshii ka baxaya laakiinse waxyaaba haddaan anigu talada siin lahaa waxa weeyaan waalidiinta especially soomaalida halkeena la degan marka imaka xilligan waa xilliga qofku baraarugi lahaa okay hooyo kastaaba imaka waxaanay igu dhalisay inay isku dib ugu noqdo because markaad waxyaabaha qaar optionadaada fara badan ayaa markaad okay qofkii shaqooyin badan baa jiro aad guryaha ka qaban kartid laakiin dadkeena waxay u baqan yihiin waa shaqooyin badan oo been labor oo inaad dibaddii u baxdaa tahay waxaad noqonay ta dhibaatada keenaysaa badiyada xanuunkani jira ka waran oo hooyadii weli ku qasbantahay inay shaqadii tagto oo weliba meeshay ka shaqaynaysay covid-19 ka dilaacay taasaa kasii adag oo og inay 4 ciyaal iyo 5 ciyaal gurigii dib ugu soo noqonayso iyadoo kasoo shaqaysay meel xanuunkaasi ka dilaacay waxaan aragnay hooyooyin kelidooda intuu covid-19 kaasi ku dhacay cid u macuunta la waayay oo iyagoo aad u sakaraada caruurtoodii 5 jirka iyo 6 jirka ay noqdeen inay hooyadii ku caawinayeen wax biyeysiinayeen waxay u baahnayd soo qaaday hooyooyin badan baa jiray wax xanuunsanaya shaqo tagay oo ku qasbanayna shaqo tagaan marka xilligan waxaan u malaynayaa inuu qof kasta baraarujinayso oo okay maxaa muhiima maxaase aan muhiim ahayn maxaa nolosheeda hadda ka bedeli karaa hooyo kaste okay hooyo kastoo shaqaynayso shaqa adag ka shaqaynayso ku qasbanaatay xilligan inay dibadda u baxdaa inaad tiraahdo okay maxaan iska bedeli karaa yani dunidu maalinba maalinta ka sidanaysa wax cusub baa imanaya maxaan ugu diyaar garoobi karaa dee ilaahay baa wax kasta qadarka haya laakiinse anigu shakhsi ahaan maxaan ugu diyaar garoobi karaa ubadkayga maxaan u diyaarin karaa imaka waa inaan ku dadaalo anigu ayaan ahaan haddii ay igu soo baxsato sidee baan ubadkayga wax ugu dhigi karaa aan waxbarashadoodiisa aanay de iskuulkii hadday seegaan aanay u noqonin de caruur telefishon ku xiran markaa tahay waxaan u malaynayaa arrinkan inuu yahay wake up call wax baraarujin waa baraarujin qof walba hurdada ka kicisay runtii gaar ahaan hooyooyinka oo ah sababta in uu focus garayna hadalkeena markaan maka hadlayno xanuunka iyo saameynta hooyooyinka ku yeeshay arinta inaad iskuulka ku noqoto waa run weeyaan imika Sweden bishii ugu horeysay xanuunku bilaabmay markii
shaqooyinkii laga fadhiistay ama jaamacadiin laga fadhiistay waxa kor u kacay 200% ardayda jaamacadaha dalbanaysa macnaa tira aan hore loo arkin oo xad dhaaf ayaa jaamacadihii dalbatay heer waxa la gaaray lasoo qoro leeyahay qofkii jaamacada dalbanayo imikaba sii dalba macnaa say tiradu xad dhaafka ay samaysay waxaana iska cad xanuunkan markuu dhamaado adduunka inuu kaga tegay raad fara badan dadkii tiknoolajiyadii isticmaalay dadkii ogaaday in guriga laga shaqeyn karo shirarkii inta badan lagu qabanayo in halkan arintan kula talin lahaa marka waalidiinta tusaale ahaan hooyooyinka kale waxa weeyaan in uu qofku aanu isodhan guriga inta joogto wax walba qab waxaad arkaysaa qofka oo dhan guriga inta guriga joogo cunto karintaan baranaya amba wax cusub baan baranaya way fiican tahay inuu qofka amba wax akhriyo fikrahaasan qaba amba wax cusub barto laakiin haddana waxa dhici karta hooyada inay hawl ku filan hayso in awlaad ku filan hayso inay culays fara badan saaran yahay dabeetana marka social media ka shaatiraado xanuunka intii guriga fadhiday maxaa laga bartay uu qofku isagu yiraahdo okay qofka kaliya waxba baranayn maadiga qofka kaliya sida cuntadii loo kariyay barani maadiga qofka kaliya buugaag badan akhriyin maadiga macnaha wuxuu ku saarayaa pressure fara badan marka waxa oran lahaa marka qaar inaad waxba qabanin waxay la mid tahay qabatay inaad maskaxdaadii naftaadii nasiso marka taasan hooyooyinka anugu horeeya adigu ku xigto dhammaan xasuusin lahaa inaynan mataqaanaa qof keligii guri ku xidhan oo shaqo haynin oo maanta dhan waqti hayaanada dhan muxuu karantiinkani ku baray intaad guriga joogtay aan culays la isku saarin qof kasta waalid horta maanta maskaxdayda hooyo kastoon arkaa waa hooyo jecel inay like hooyo maanta hooyo kastaaba waxay ku dadaashaa ilmaheeda inta karaankeeda inay wanaajiso reerkeeda inta karaankeeda inay wanaajiso hooyo dibadda kasoo shaqaysa hooyo guriga ka shaqaysa waxban qabaa hooyada horta guriga joogtaa inay ka hawl badantahay hooyada xitaa dibadda kasoo shaqaysa ya oo aanay nasiimaheelin dadka aniga inta badan aadka iyo caayo waxa weeyaan inta badan waxaan jeclay inaan hooyooyinka kale ku xidhnaado weliba hooyooyinka amba caruurtoodii kee waaweynaadeen ee weliba halkan qurbaha ku koriyey dad baa jira halkan aan ku xidhan ee waddankan markaan ilmihi hooyooyin aan bartay baa jira oo like mar kastaba tala ahaan aan la hadlo yacnihii waxyaabo badan waxaa jira bugaagtu waxa laga yaabaa inaad buug akhrido laakiin experienceka adigoo hooye aad maanta istaahilhaani siin kartid wuu ka wanaagsan yahay waxaan buug akhriyayo because adigu waxaad yacnihii si waaqiciya ayaad ula soo kulantay marka waxaa odhan lahaa anigu hooyooyinka xitaa way ficnaan lahayd in laysku xidhnaado oo yacni qof kastaaba markay wax xaaladi kula soo gudboonaato يعني هويين كلو لا تشان كرتو والدينتيو انا ولبيه تكون عيال نقولي ادغنا وان اوغاي انت ادوين انت لا عبد الرحمن عندي طبعا سيكا xilli adag ba waliba leeyahay soo koriyo xilli wadanku burbursan yahay dhaqaalaha la burbursan yahay nolosha adag tahay ay waalidiintiin naga soo saareen marka waxaan oran karaa hooyo kasta yani wixii aad istiraahdo yani hooyo kastaba wixii aad istiraahdo yani waxana familkaaga u wanaagsan ama reerkaaga u wanaagsan inaad samayso qof kastaana wuxuu leeyahay the capacity qof kastaba waxa laga yaabaa imika kale waxyaabaha la baranayo baa leeyahay dee bishii ugu horeysay aniga inaan keega yahay weliga waxba ma beygarayn waxba keeg ma dubin waxba ma dubin laakiin bishii ugu horeysay oo dhan waxba dubay taasi waxay xadaysay inaan kugu wanaagsaneyn bayna keeg sameeyo laakiin waxyaabo kaloo badan ku wanaagsan tahay yes si kastoo iskugu dayay waxay noqotay in keegay xaafadda kale markan tago inantaasi samayso inuu keegaasi markasta ka wanaagsan marka waa inaan helo wax kaloo aan ku wanaagsanahay oon samayn waa runtaada weeyaan laakiin macnaha arinta mataqaanaa khaasatan hooyooyinka soomaalida waxa mar walba xoog iska saara inay dadka guriga jooga oo dhan ay happy ka dhigaan oo hawshooda ay qaadaan oo magaranaysa ay iyagu is ilaabaan qofku markuu wadankii joogo daaradda oo keliya taa ayaa hawo leh marka dibadda macnaha albaab qolka ka baxda waxa laga yaabaa in hawo qaadatid amba dayrkii aad ka qaadatid laakiin inagu sidiin ognahay 99%
dadkeena qurbaha joogaa waxay ku nool yihiin apartments amba qolal yaryar oo xidhan marka adiyo halkaa ku xidhan haddaad maanta oo dhan naftaadii ilowdo culays fara badan bay saaraysaa waxaa la sheegaa qiyaas ahaan hooyooyinka kasoo jeeda wadamada ajaanibka ah ee soomaalidu ka mid yihiin ee waddankana ku nool marka la barbar dhigo dhigooda ragga ah amba hays qabaan amba guud ahaanba rag iyo dumarka haddii loo qaybiyo in dumarka la qabo ee hooyooyinka ah ay aad iyo aad ugu badan yihiin inta xanuunadani ay la soo darsaan culayska maskaxda u keenaa oo aad u fara badan tahay inta qaata daawooyinka innagana bulshadeena siin ogna waxa ku badan ayadoo taasi jirto haddana macnaha ma tegi karto hadday tagtana waxa la odhanaya heblaayo way waalatay heblaayo way isku buuqday macnaha waa arrin aad iyo aad u adag runtii oo aan ku dhiirin lahaa hooyo kastoo maanta ina dhegaysanaysaa in hadday u tagto dhakhtarka cilmi nafsiga haddii xataa daawooyin qaadato inaanay ceeb ahayn in sida jirkaaga aad u daaweynayso aad u baahan tahay inaad u daweysadeena maskaxdaada ya style waxaad yes arrinkaa qodobkaad ka hadashayaa in hooyooyinku hadday xaalad maskaxiyaana ay la soo gudboonaato dadku inaga soomaalida markana waxaan ka fikirnaa un full blown psychosis like qofku hadduu waaliya ku dhacdo inuu yani laakiin waxyaabo dee waalida ka hooseeya jira oo maxaa deenay isla hadalkaasi culayska qofka maskaxiyeenu dareemayo amba xaalad ha ku keento xaaladdan imanka covid-19 ka yimi dumar badan waxaa jira dee dunida korba u kacday raggii guryaha la joogay amba abuserka amba domestic violenkii korba u kacay xitaa kulliba dunida waan la qabnaa in domestic violenkaasina yani raggii maqnaayo dibadda kasoo shaqeynayay aan buuqooda xilli kala maqnaadiis ay iminka guriguu joogaan 24/7 marka taasi waxay noqonaysaa inay caqabad kale ku noqoto yes dhiirigelin waan siinaynaa dadka maxaa dadkeena haddii xaalad noocaasi kula soo gudboonaato weliba dadka qurbaha jooga waddankeena waxaan haysanay waxaan horta halkan lagu haysanay waxaan haysanay wax support hadday waalid tahay hadday ilmaadeer tahay hadday adeer tahay hadday naadeer tahay waxyaabo badan bayn haysanayo yani xagga community-ga ah laakiin halkan waa sidaad sheegtee meel baad ku xidhan tahay marka dhibkaagii oo dhan halkaasaad la seexataa halkaasaad kala soo kacdaa waxaa laga yaabaaba xitaa qofkii ku jeclaayo magaaladii kula degana inaan xitaa wakti uu kugu haleelo kugu dhegaysto amba kugu yimaada aanay jirin isagaba tiisii ay haysato maadaama dhulkan ay jiraan dhakhaatiir servicyo dhan oo bilaasha waa in laga faa'iidaysto haddii qofku dhulkaygan waxaa jira dhakhtaro badan oo xitaa muslimaa jira lama odhan karo hadduu xitaa qofkii ku adag yahay inuu dhakhtar muslimna arko like meel kasta way buuxaan soomaali baad heli kartaa carab baad heli kartaa tii dhakhtar ahaan iyo tii dhaqan ahaanba kula garanaya so waa inay dadku yani haddii xaalado adagoo maskaxdeena la soo gudboonaadaan ay maxaadeen dhakhaatiirtoo tagaan anigu waxaan soo taagnaa inaan dhalinyaro halkan 2014 magaaladeeda isku deldelay magaaladii horeen deganaa wiilkii isdeldelay marka siduu isku deldelay lama ogeyn xanuunku qabay markii hore anigu wiilka maalin baan arkay waad yani marka la fadhiista la sheekeysatid waad garan kartay yani like waad dareemi kartay inuu yani hadalkiisu kala gogo-ayay aanu qof soo wada jeeda ahayn laakiin de dhakhtar ma yihiin xilligaasi xitaa wax badan kamaan aqoonin mental illnesska iyo waxyaabaha yani dadka iminko kale hadda de qofku waan baraarugaya marka waxyaabo badan oo yani markaan arko okay qofkaasi wuxuu u baahan yahay inaad aad la hadashid maskaxdayda kusoo dhacaya hadda ayaa jira laakiin xilligaasi de inform maan ahayn warar badan oo yani dadka xanada maskaxda ku haya maalayiin bas laakiin waxaan in hadalkiisi kala go-ayo unbaan arkay malaha 4 bilood 5 bilood markaan arkay kadib ayuu isdeldelay markaa dadkii badnaa wallahi ka sheekeynayay waxay sheegeen inuu kala yimi afrika xanuunkan maskaxda laakiin cidi aanay ogeyn halkan sanadkii marka horeen soo dhaafnay
inan baa iyadna iska soo turtay guri waana Soomaaliyeed waa Soomaaliyeed wax la sheegay in iyadu Afrika joogta ay dhibkani qabtay dhulkani laguguma takoorayo xanuun maskaxeed aad qabtaa imika isayna mar hore ugu wada hadalana kula wax ka shaqeeya meel 20 qof oo xanuun maskaxeed u kala duwan ay hayaan co-current waxay dhahdaan laba xanuun baa isku raacay xanuun maskaxiyeed iyo addiction baa isku raacay balwado ayaa isku raacay marka way adag tahay dadka xanuunada maskaxda ku dhacayaan balwaduhuna u dheer yahay sida loo treat gareeyaa yani treatment loogu sameeyo aad buu aragtay marka meelaha loo sameeyey harm reduction sites oo ay dadku ku noolaadaan at the same time qofkii hadduu drug overdose ku dhaco kale dad ay joogaan la shaqeynaya oo yani irbada ina xag kule Sweden the same thing you know meel kastana laaksan kid yaalo antidote waxay dhacdaan qofkii hadduu yani drugs kan isticmaalaya amba waalidani ka farabadato like in assistant lagu siin karo waxyaabo badan oo dadku ay aayar ugu dhibaatoon lahaayeen ayaa halkan lala dadaalaya inuu markii qofkii xanuunkii maskaxda ku yimi in la caawiyo marka laakiin dadkeeni ma jirto qofkiisa wax xanuunsanaya waa inuu isqariya marka yani waa waxyaabo aynu baahanahay inaynu ka hadalno dibadda u soo saarno onano maaha inaad ahaatid dhakhtar amba qof adeeg caafimaad ka shaqeeya waxay noqon karnaa dad uu activism u sameeya xanada maskaxda ku dhaca oo idhaahda okay waynan caawina dadkeena wayn maxaadeenay waxa kaloo jiri kara in loo sameeyo meelo safe space oo dadku kaga hadli karaan oo laisla raadiyo dadka dhibaataysan maskaxda ka dhibaataysan iyo dadka amba dhakhaatiirta amba caawin kara halga yaabaa inaynan inagu caawinin laakiin aan isku xidhi karno dadkii caawin lahaa dadkan xanuunsan ee meel kasta magaalo kasta la joogo si qof kastaaba yani uga hadli karo oo treatment amba dawo yani saxa loo siin karo xitaa kiniin uma noqon karto aad iyo saad si fiican baad uga hadashay waxa aan dadkeena tusaale ahaan ku baraarujina waxa weeyaan qofka in xanuunadan qaba ama warwarka walbahaarka isku buuqa ku doonaha ahaada mid walba waxa caawin kara qof labadiisa dhagood furan yihiin oo aan la yaabahayn oo aan taqana judgmental ahayn oo waxa had ka sameeyay ma iska deysid oo ma istajisid macnaha inuu qof dhageysanaya oo laha okay waxa laga yaabaa qofkaas inuu baahan laba dhagood oo kaliya oo uu baahan ba afkaaga inaad wax ka tiraadid laakiin inta badan dhaqankeenu kaama suurta geliyo waxa noqon shaydaanka iska naaro tuko cibaadadu way daweysaa oo way dejisaa qofka qalbigiisa laakiin dadkoo dhan iskooda cibaado ma aha laga yaabaa qofka halkii cibaadada u tilmaamin inaad marka hore dhageysato oo tiraama saasaa kugu dhacday oo kadibna oo xataa haddii mushkiladda uu sheegay adiga ay agtaada wax yar ka tahay aad tiraahdo isaga way la weyn tahay macna halkiisa aad istaagto kabihiisa aad xirato oo in dad yoga aan aad ka uga xumaado shakhsiyan waxa kamid ah dad yoga social media soo dhiga dabeetana in la sii faafiyo dabeetana macnaha laga ruwaayadaysto ama laga maadaysto ma fahmaysaa macnaha qofkii waxaad arkaysaa qofkan inuu qalbigiisa iyo naftiisa iyo dareenkiisa wax xanuun hayo oo uu qofna ma jecla inuu intuu meel ka safarso iska hadlo amba uu macnaha wixii noloshiisa u gaarkaa ka hadlo dadkeedana waxa laga yaabaa inta badan baynaanay xumaan ka ahayn laakiin ay la yaaban yihiin leeyihiin qofkan macnaha mushtaanka iska naaro maxaa ku dhacay muxuu la waashay absolutely xitaa dadki markay noqoto dadkeena oo kaliya ma kama dhino iminka markaan shaqooyinka qabano waxa lagu qasbaa waatii marka wadankeena joogna first aid-ka iyo CPR-ka haddii nabar qofku ku dhaco haddii dhagax ku dhaco hadduu gubto sidee baad ugu samayn kartaa the first aid-ki iyo CPR-ka qofka gargaarka degdega waxaanu ku qasbanahay every 2 years shaqadayada inaanu qaadano gargaarka degdega maskaxda mental health first aid hadda wuu dhaco expired date qofkiisa anigoo 2 sano ka hor qaatay waa in ma 2 sano markiisa u buuxsanayaan sidii aan u qaatay kii physicalka ahaa waa inaan ka mentalkaan u qaataa
waxa lagaga wada hadlaya waa 2 days 3 days oo full days waxa kaloo course kaloo waxa lagu qasbaya dadka shaqaalaha suicide intervention course qofku markuu suicide yahay amba uu ka fikray naftiisa dilo amba inuu dhulkan aad ugu badan yahay sidee baad u caawin kartaa sidee baad dibkiisa ugala hadli kartaa qofkaasi yani intuu ka helayo cidii mihnadan amba dhakhtar maskaxiyeed amba dhakhtar u gaari lahaa haddii uu kula kulmo sidee baad u gaarsiin kartaa inta ugu imanayaan ambulance ugu imanaya qofka sidii haddii qof imaka xabado ku dhacdo haddii joojin ugu samayn lahayd ayaa lagu barayaa inaad qofka haddii uu crisis madaxiisa ku jiro sidee baad u dejin kartaa ilaa intii dadka caafimaadka ugu imanayeen so maaha inaad noqotid halkan bilays waxaan markan trainada gelino waxaa nala galaa bilayskii baa nala gelaya waxaa gelaya corporate-ka waaweyn dunida nimanka maxaa deenay organizationada waaweyn ayaa soo diray HR-adoodii maxaa deenay dadkii maxaa deenay ilaa iyo payrollka iyo mental health waxaa iska gelaya qofka yani qof kasta wuxuu la kulmi karaa qofka aad wada shaqaysaa ayaa lagu leeyahay okay haddii qofka behaviorkiisu isbedelo waa inaad ogaatid adigu waa inaad la hadashadtaa okay what's going on caruurta imaka dhulka ku dhalatay xitaa inaad ilmahaaga wad garan kartaa dee afmada garan qofka inantaada I know caruurta lagu garata they know okay what's wrong with your face adiyada waxaa ka socday marka daawanaysa wejiga furto ilmahaaga furtid waxay wana okay maxaa wejigaa ku dhacay maxaad aragtay so halkan dadkii waxaa loo tiragelay cadaankii iyo madowgii cid kastaba ummadda halkan ku nool meel kastoo aad ka shaqayso waxa lagu qasbayaa inaad yacnihii qofka aad u samayn kartid intervention haddii uu crisis ku jiro sidii markaa uu dhaawaca yahay jirkiisa aad u muuqdo uu dhulka ku dhacaad CPR u siin lahayd eed wadnihiisa u bamgarin lahayd inaad xilliga maskaxdiisana gaarsiisid waxaan u malaynaya waan ka hadalnay saddexdii su-aaloodii muhiimka ahaa ahayd hooyadii inay tagto dhakhtarka oo ay sidii jirkeeda u daweynaysa maskaxdeeda u daweysa maxaa jeclaalaad inuu kusoo gabagabeyno horta waxaan odhan lahaa hooyo kasta oo Soomaaliyeed hawl badan bay qabata hooyooyinkeen ha ugu horeeyaan hooyooyinka hadda joogana xaalad ka duwan baa haysata weliba dadka qurbahela jooga hadday noqoto like aad iyo aad bay uga duwan tahay waxaa laga yaabaa in xaaladii wadankii joognay ay adkayd laakiin haddana aynu haysanay caawimaad fara badan halkan caawimaad jireed iyo mid maskaxeed toona ma haysano marka hooyooyinka halkan jooga waxaan kula talin lahaa haddii ay tahay haddaad dareentid culays doono caawimaad inaad ciddi ku caawin lahay doono ha ka baqan inaad waqti adigu naftaada u qaadatid marmar bay ku qaadaan anigu highwaygan qabsadaa keligay odayga carruurtaan kaga tagaa alxamdulilah way isla wanaagsan yihiin carruurtiisa isagu so waddadaasaan qabsadaa I make sure inaan time haysto hadday tahay qofkan shaah la soo cabo deeta gurigaan kusoo noqdaana maskaxdooda degan tahay xilligan COVID-19ku de shaqooyinkiibaba soo xirxirmayo waxyaabo badan oo la qabanayaaba iska yar inkastoo shaqaynana haddana de shaqooyinkii dibadda laga shaqaynayo way yaraadeen xilligan laftigiisa inaad aad ku dadaashid sideed waqti keligaa u heli lahayd haddaad 12 saacadood carruurta la joogtay make surena 2 saacadood naftaada haddaad wax akhrin enjoy garayso haddaad hooyo inay wax dubto keeg dubto jecel tahay wax naftaada inaad qabatid ayaan hooyooyin kula talin lahaa anna saas link baan kula talin lahaa waxaan kaloo intaa ku dari lahaa in hooyooyinka carruurta guriga ku haysta ee carruurtooda routine ay raacaan ay lahaayeen say inay iskuul tagaan inay macnaha waqtigooda u qaybsanaa waxaan odhan lahaa in waqtiga ilmaha guriga markuu joogo la qaybiyo laftigiisa way ku caawinaysaa tiraada 7 marka la soo kaco waa la quraacanayaa iyagoon meel tegin haddana dharkii laga bedelo la yidhaahdaa kaa fadhiisto wax akhriya ama wax qora amba ciyaara sidoo kalena aan marmarka qaar loo ogolaado waxaan ilmaha uga fiicnayn
laakiin adigana waqti ku siinaya isagana nafis siinaya oo tusaale ahaan la yidhaahdo maanta saacad baad daawanaysaa TV-ga amba 2 saacadood baad daawanaysaa oo la kantaroolo wuxuu daawanayo oo macnaha aanu qofku isku dayin wax kastaba inuu perfect ka dhigo oo ilmi mar walba wax loo dhigo mar walba uu ciyaaro way wanaagsan tahay laakiin waxa dhici karta in hooyooyinka qaar ay saarto culays taana waan kula talin lahaa sidii hore aan idhina inaan mataqaanaa waqtiga fasaxa la soo waqti wax walba la qabanayay uu qofku isbarbar dhigin dadyoga kale amba gaar ahaan social media aad moodo inay toxic tahay macnaha sun ay tahay wax laga yaabaa garanaysaa in 10 filter qofku isticmaalo hooyadu tiraahdo hooyada kale say nafteeda qalashay eege aad isku haleeyo laga yaabo inay runtu saa ka duwan tahay ama cuntada soo karinaysaa 100 filter isticmaasho macnaha ma garanaysaa inaanu qofku isbarbar dhigin macnaha dhalanteedka social media oon ogahay inay hooyooyin fara badan culays badan ku hayso oo taasan aad runtii aan aad uga digilaa inuu qof kasta ogaado guri kastaba in hawl culus baa hooyada u taala hooyooyinka qaarna macnaha aanay isbarbar dhigin oo wax kasto social media lagu arkaa muuqaal hadday tahay arag hadday tahay maqal hadday tahay ay yihiin wax lasoo kaawadeeyo la tacjatirayaan xaqiiqadii ahayn yes no markasta perfect maaha yes no markasta perfect baa maalin bay kaa jaban tahay maalin baa caadi tahay yes so marka waxay tahay inay noqono dad yani realistic oo runtii ku dhaqmaya dee waalidiinta kaa waaweynna waa la dhegeysto markay noqoto inaad ay noqoto dee horta xaaladan cid soo martay baaba COVID-19 kan dunida san ayaaba jirinba yes laakiinse qofku inuu ka hadlo wixii uu tabanayo haddii wax kula soo gudboodana waxaa laga yaabaa haddaad ka hadasho ood qofta confident oo yani kuu dhow kalaad kala hadasho maybe qofkaas xitaa inuu tala kaasin karo oo koran karo yes waxa kaloo qofku samayn karaa haddii aanad haysan qof aad la hadasho sirtaada maanta cidna kuma aaminaysid inuu qofku qalin ya warqad qaato u deetano qoro wixii dhan qoro macnaha waxay ku siinaysaa relief qofkii siinaysaa sidii aad ka hadashay oo kale ay noqonaysaa markay maskaxdaada ka soo baxdo hadda dood gubi kartaa biibo ku dhexdeed waraaqa hada sideedayaa la baqla arki laakiin macnaha waa inaad yeelataa meelaad ku sii dayso meelaad ku sii dayso haddaad doonto codkaaga duubtatana hadhow masax markaad dhegeysatay adigu is dhegeysato haddaad doonto qor haddaad doonto meel fadhiiso isla hadal macnaha laakiin inuu qofku sii daayo wixii ku jiray isaga uu iska soo saaro waa muhiim waalidkana waa cid lagu nafisi karo qof kasta haddii ilaahay waalidkiisa u daayey amba walaaladii oo kale macnaha inuu qofku nafiso waa muhiim aad iyo aad hooyo kasta inay dareento inaanay waa tiloolan jiray ha dhaleecaynin yani inaan waalidka kale wax la dhaleecaynin la dhooga nuglaado oo dadka la dhegeysto lagaa qofkan tolo waxaa ku kalifaya like intaan la eegin qofka yani waxaan dibadda servicekan dibadda amba qofkii inuu judgmental lagu noqon hooyada yes hooyo yani la isku naxariisto okay maybe dad kabaha qofka xidhnaan lahayd xaaladda ka duwanaan lahayd qof yani dadku ay noqdaan dad yani isku dhagan nugul ay noqdaan waan dee seefta marka seef la buudaanahay waa muhiim in hooyada kale u naxariisato oo aanay nafteeda barbar dhigin isbarbardhiguna waa arin aad iyo aad u xanuun kul markaa isbarbardhigto heblaaye iyo instagramkeeda iyo social mediaheeda iyo snapchat macnaha waa arin adigiina culays u gelisa koorasa qofkaas hawshiisii dhan intuu kasoo baxay waalkaas fahmaysaa laga yaabo inay dhibaatooyin kala haystaan oo adigoo aad ku fiican tahay absolutely waa ka xumaha ina ku celceliya laakiin macnaha inaanad qof naftaada qof kala barbar dhigin social mediana madaxa aanu kaa gelin waxyaaba badan hooyooyinka hadda haysta weeyaan laakiinse intan joogno yes hooyo kastaba anigu marka hooyo kasta dhaqaayo okay ya waxaa wanaagsan baad qabata because xaaladda ku jira iyo ubadkaan arkay markaan arko
okay labada haysataa laga weydaa 12 bay dhashay soo gurtay waliba xaalad kaada kusoo gurtay markaana hooyadii waxaan dareemaa okay iyo dadkiina like hooyooyinkeen waa geesiyayaal weeyaan macnaa wax badan kama gaari karnaan ayaan aaminsanahay hooyooyinkeen waa allaha barakeeyo waa geesiyaal ayaanay aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa dhammaan hablaha iyo dumarka gaar ahaan hooyooyinka intayna dhegeysatay maanta barnaamijkeenu ku saabsan yahay ambayna daawanaysaba inay ka heli doonaan oo inala qaybsan doonaan sheekadeeni qaabkaan u wada hadalnay waana ku faraxsanay maanta inaan ka hadlo mawduuca hooyooyinka oo keliya quseeyoon cilmi ballaadhan ku fadhiyin laakiin hooyo iyo sheekadeeda iyo sidee nafteena iyo dareenkeeda iyo khibradeena hooyanimo ku fadhiya aad iyo aad baan kuu salaamay waan oga inay waqti dambe tahay in Canada laakiin hurdo wanaagsan ma ku horjeedaya sidoo kale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu